qodobka ugu muhiimsan waxa weeye in labadii shirkan imika bilaabmaya beri maayo saa dambena midnimo tawfiiq loo galo ka 26 galayana midnimo tawfiiq lagu galo iyadoo gacmaha la haysto oo la raaco labada shir bay noo qabsoomaan oo dhacaan mar walba waxaan cadeynaa inuu garsoorka madaxbannaanidiisa ixtiraamno xukuumadahan aad baan u ixtiraamayna markana maanan faragelinayna waxaanu haynoon sidana fiican marka rayi kala duwanaan waa soo midaynay uu mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo wasiirkuba sida uga qayb qaateen wada hadaladii iyo negotiationkii aan wada galnay in si fiican u dhamaaday xarunta maxkamadda sare ee Soomaaliland maanta waxa ka qabsoomay kulan ballaaran oo isugu yimaadeen bahda cadaaladda kulankani ayaa ahaa mid lagu soo afjariyay khilaafkii u dhaxeeyay sidoo kalena ay ku shaacinayeen qabsoomidda labada shir oo kala ah shirka cadaaladda iyo shirka garsoorka waxaana kulankani shir gudoominayay gudoomiyaha maxkamadda sare ay ku weelinayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda xiriiryaha guud ee qaranka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyagoo shaacinayna waxay yiraahdeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam marka ugu horeysa xiriiryaha guud iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan isugu nimid maanta inaanu baahino fariintaasina waxa weeye waxay kaabiga inagu soo haya shirkii cadaaladda guud shirkaasoo maalinta salaasada furmi doona waxa baryahan buu ogeydeen inay jireen ray kala duwan oo ku saabsan ama qaabka shirka ama magaranaysa habka u dhacayo xaasoo dhan marka maanta halkan waxaan isugu nimid saa u aragtaan annagoo dhammaystiran inteedii hoggaanka inta kale naga maqanina ay arrintan nagula qabto inuu soo afjarmay wax kasta oo ray kala duwanaayo ama khilaaf aha inuu meesha ka baxay waxaana la isla qaatay in shirkii cadaaladda imika soo socdana laga wada qayb galo si wada jir ah oo midnimo oo tawfiiq laga qayb galo shirkii garsoorkuna 26 iyo 27 January inuu noqdo isagana saasi looga wada qayb galo labada shirba ay midnimada ku dhacaan waxaan markaa halkan maanta ka naadinaynaa in wixii khilaaf ahaa iyo wixii ray lagu kala duwanaa uu dhamaaday la isla waafaqay arrintiina la isla qaatay tawfiiqna lagu soo celiyay waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrinta ka odeeyay oo de hogaamintii dalkana leh iyo runtii marka hore dhammaan cidii kale ka qayb qaadatay iyaduna daraf ka ahayd ayaan uga mahadnaqaynaa wax kale oo mahadnaqaynaa saraakiisha halkan fadhida oo iyaguna runtii dad madaxtinimadana maalinba qofka jooga ray u iman karaa aaraa lagu kala duwan u iman karaa dhinacyo kala duwan oo wax laga eego u iman karaa laakiin in la xaliyo oo la isu yimaado marka horena dood wuxuu bay haydo iyadoo la midaysan in la midoobo oo shirarka la wada qabto la isu yimaado la wada hogaamiyo marka alxamdulillah tiibaan maanta ku soo noqonay oo ilaahayna waafajiyay waan uga mahadnaqaynaa madaxda halka fadhida xeelaaliyuhu ka mid yahay wasiirku ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ka mid yahay agaasimuhu ka mid yahay mahadsan yihiin iyo inta naga maqanba saasaanu ku culaaminay qodobka ugu muhiimsan waxa weeye in labadii shirkan imika bilaabmaya beri maayo saa dambena midnimo tawfiiq loo galo ka 26 galayana midnimo tawfiiq lagu galo iyadoo gacmaha la haysto oo la raaco labada shir bay noo qabsoomaan oo dhacaan oo si sharaf leh ku dhacaan marka waa mahadsantii aad baan gudoomiyaha ugu mahad celinaynaa fadhigan suuqaaya yeeray ku ballansanayn taasoo aanu kaga warbixin doono khilaafkii jiray iyo raygii kala duwanaa ee muddada bil iyo dheeraada ka socday bahda garsoorka iyo cadaaladaba oo isku jira oo rayigun lagu kala duwanaa aan ahayn colaad ka dhaxaysa laba shakhsi iyo saddex shakhsi laakiin ay ahayd hay'ado shaqaynayay oo qaabkii loo qaban lahaa shirarka la isku khilaafsanaa tiina maanta way soo gabagabowday oo labadii shir la kala qabanayay bishii labada bisha ilaa saddexda bisha shirkii shirweynihii cadaaladda ayaa la qabanayaa oonu isku waafaqsanahay oonu maxay ahaday ku dhamaynay isafgarad iyo wada hadallo dheer oo madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu noogu hormood ahaa oo arrinkaa isu kaya soo dhaweeyay halkaana uu ku dhamaaday wixii ray kala duwanaa rayigiina meel isku keenay in shirka cadaaladana imiga la qabanayana labada bisha
laga wada qayb galo haddii garsoor la yahay iyo haddii maxay ahayd xeeraalin la yahay garsoorayaal iyo xeeraalin iyo dhammaan maxkamadaha iyo dhammaan hay-adaha kale ee haday qareena yihiin iyo hadday wasaaradda cadaaladda in laga wada qayb galo si laab xaadhan oo aan wax khilaafi jirin oo aada la isku hawsaday si fiican baanu arrinkaas noogu dhammaaday kaasi waa kaa shirka kalena ee shirweynaha kale cadaaladana waqtigiisii 26 January isna la qaban doono insha Allah oo sidaa aan labadaa shir ba ay ku hirgeli doonaan ana labadaba lagu wada qayb geli doono aad baan markaa ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo wasiirkuba sida uga qayb qaateen wada hadaladii iyo negotiationkii aan wada galay in si fiican u dhamaaday wax khilaafoo dambana insha Allah wixii dambana aan ka wada shiri doono insha Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma tusnatay marka labaad waxaan mahadnaqayaa gudoomiyaha maxkamadda sare haraaliyaha guud gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare iyo agaasimaha guud wasaaradda cadaaladda kulankan isugu nimid waa kulan barxadeed oo barakeysan insha Allah ta'ala sida odayaashu gudoomiyaha maxkamadda sare iyo haraaliyaha guud qaranku sheegay waxaan halkan u fadhinaa haddaan nahay bahda cadaaladda Somaliland in aanu khilaaf bariyahanba ka dhex socday waxa cadaaladda aan soo afjarnay taasoo afjirkeeda iyo mahaddeedaba uu iska leeyahay ilaahay ka soo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ah odayga qaranka odayga jamhuuriyadda Somaliland oo mahadnaqayna khilaafka lama jirin ra'yiga kala duwan uu ahaa marka anagii aadan gudoomiyaha maxkamadda sare saaxiib baan nahay anagoo kala ra'yi duwan saaxiib hayno wada hadalno kulmaynay shaqadunba sidana ku fiicantahay sidana ku fiicantahay ma naga dhaxaysay marka waxaan aad ugu faraxsanahay inay taasina naga soo gudbooday in shirweynaha cadaaladda heer qaran u dhannahay oo waaxda garsoorka iyo dhammaan danayaasha cadaaladda oo dhan ka wada qayb galayaan oo sida gudoomiyuhu declare gareeyay ay tahay maalin weyn oo farxadeed oo in shirweynaha cadaaladda heer qaran oo qabsoomo 2 iyo 3 bisha 12aad oo maalinta Salaasada iyo Arbacada insha Allah ta'ala weekend ku dhex jirnaa shirka garsoorkana noo dhaco bisha dambe January bisha koowaad 26-keeda mar walba waxaan cadeynaa inuu garsoorka madaxbannaanidiisa ixtiraamna xukuumadahan aad baan u ixtiraamayna markana maanan faragelinaynay waxaanu hayno sidana fiican marka ra'yi kala duwanaan waa soo midaynay mar labaad madaxweynaha ugu mahadnaqaya midnimada iyo wadajirka dadka reer Somaliland iyo dawladnimada Soomaaliya waxay ku soo caanamaashay in wax walba wadajir iyo loo qabto annaga xukuumadahana halkubiga xukuumadda waa wadajir iyo wax qabad marka kana kamid ah wadajirkii wax qabad xukuumadda in la wadajiro waxna la wada qabsado waayo haddaan la wadajirin wax qabad ma jirayo marka haddii la wadajiro wax qabad ku imaanay marka mar labaad mar saxad gudoomiyaha iyo bahda cadaaladda ugu mahadnaqaya kulankeenana barwaaqi balaaran la ka rajeenay gudoomiyaha maxkamadda sare ana gudoomiyaha guddiga cadaaladda xeeraliyaha guud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda sare dhammaantiinba markooda aan salaamaya marka labaad say sheegeen odayaasha madaxda sare bahda cadaaladdu ay arinta sheegeen tawfiiqda ay arrinteedu ku dhantahay hadii ilaahay yiraahdo saa gudoomiyuhu sheegay wasiirkii xeraaliyuhuna ku raaceen ayay shirarkeeni noo dhici doonaan hadii ilaahay yiraahdo marka shirka hore ee ah shirweynaha cadaaladda oo 2 ilaa 3 bisha dhacaya hadii ilaahay yiraahdo anagoo dhameystirno gacmo saysana ayaan ka wada qayb galnaa hadii ilaahay yiraahdo anigu bahda garsoorkana kamid baan ahayo shirka dambe ee bahda garsoorkana hadii ilaahay yiraahdo 26 January halkaas inuu qabsoomi doonaa markaas tawfiiqda ee wadajirka ah insha Allah ta'ala waxaas noogu dhici doontaa mahadnaqana waxa la madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo dhammaan odayaasha madaxda hay'adaha cadaaladda aad baan mahadsantihiin sanahay tawfiiqda ilayna waafajiyay waa fadli ilaahay summa li madaxweynaha oo wax dhageystaa oo inoo soo dhameeyay بسم الله والحمد لله والصلاة والله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اسقنا قيسا مقيسا هنيئا مريعا سحا عاما قدقا مجللا الى يوم الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد